Gam'i waayo tangoobaya gudbe ii qoto Gam'i waayo tangoobaya gudbe ii qoto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته channel ka afirsanaysid waxaa la yiraahdaa Manal Production anigana waxaa la yiraahdaa Manal Dole soo dhawow haddaad ila joogi jirtay maasha Allah qaxwada dhan everything haddaad iga maqnaan jirtay soo dhawow subscribe-ka ii saar comment-ka iyo like-tan waa quudkayga maanta waxaa idiin hayaa sheeko aad iyo aad ii taabatay so emotional ah waxay ka sheekeynaysaa maamo laba ciyaala laga dilay bay ka sheekeynaysaa marka waxaan rabaa reaction inaan ka sameeyo waraysigeedana aan idiin soo gudbiyo waxayna ku hadlayaan luuqadda kenyaatiga ah qisada waxay ka dhacday kenya dadkii ku dhacdana waa kenyaati marka insha allah maamada aan isla daawano reactionkeeda aan fiirino marka Wanjiru Murithi. Murithi is my dad and my mom is Angela Wakarede. I was brought up by Nyahururu na nimekuwa vizuri na kama watoto wale wengine. Na nikaja kupata watoto wangu on 1991 when I was 18 years, my first born Frederick Murithi. And Victor Mwangi when I was 23 years. Yeah. Nimelea watoto wangu peke yangu. Actually, I'm a mother of 2 boys, and the 2 boys were killed in Kitengela. And waxay tiri magaceeda ay sheegtay waxayna ku dhalatay Nyahururu meel ka mid ah Kenya. Waxay tiri waxaan dhalay 2 wiil, labada wiilna waxaan dhalay kayga weyn marka aan jiray 18. midka labaadna waxaan dhalay ayay tiri labada anigoo ah 23 sano jir mamadan waxay ka sheekeynaysaa qisadeeda xanuunka badan runtii aad ay taabatay qof bil aadan kastana way taabanaysaa inkasta uu videoga aan reactionka ka sameynayo uu aad u dheeryahay maamada sheekadeedii sida ilmaha ku dhashay ee ka sheekeynaysaa nolosheedii oo dhan bilowga ilaa ilmaha sidii looga dilay aan sii wadno marka intaas waa ayada isbaritaankeeda. There were 4, but wawili ni wangu, Frederick Murithi and Victor Mwangi. Nimekuwa na watoto wangu kwa mimi nimewalea peke yangu na ilmaha waxay tiri ilmahayga waxaa la dilay 2 wiil oo kale iyagoo 4 wiil ah labada wiil ugu horeyso oo calaamada saaran ayay dhashay ayada. Nimewalea na njia mzuri. Although I was a very harsh man, mama, niko na mimi niko strict kwa watoto sana, but they are very good boys. Na nimewasomesha vizuri. Nimewasomesha walikuwa nasomea Girigiri primary school boarding. Then nikawapeleka secondary school. Mmoja akasomea sasa naongea stori zao wawili sababu they are 2. Yes. Mmoja akasomea Githuguri na huyo mwingine akasomea Nyahururu highway. waxay tiri labadayda wiil aniga ayaa soo korsaday anigana waxaan ahaa maamo aad u adag oo maxaan ku iraahdaa rules adag u leh ilmaha ma aragtay maamooyinka kulkulul ayaan ahaa tiri wiilashayda si fiican baan u soo koriyay si fiican baan wax u baray labadoodana waxay soo kala dhigteen 2 iskool oo kala duwan na wakamaliza shule vizuri. My first born Frederick Murithi akamaliza na akaenda NIT College, Nairobi Institute of Technology. waxay tiri wiilkayga ugu weyn markuu iskuulkii dhameeyay college wuxuu aaday IT oo knowledge ah cilmiga wuxuu bartay IT-ga ah kan kalena wuxuu bartay iyada noo sheegaysa na akamaliza vizuri na akapatiwa diploma una dhameeyay. Na the second born Victor Mwangi akasoma na akamaliza vizuri, nikampeleka EDMI iko hapa Nairobi. Yes. Ya akasomea sound engineering. Okay, kii labaadna waxbuu bartay wuuna dhameeyay diploma buu asagana qaatay engineerna wuu bartay masha Allah na akapata diploma.
mimi nilikuwa mama wa kuhustle from the beginning. I was a hooker before. waxay tiri aniga bilowgayga waxay ahaa maamo xoogsata ah oo dadka waratada ah dharka banaanka ku iibiya baan ahaa bay tiri. Lakini Mungu akanijalia nikakuja in business, nikaanzia kufanya mambo ya nguo from Dubai, Turkey and China. waxay tiri markii dambe ilaahay baa ii nimceeyey oo ii furfuray wax waratadii waan ka gudbay tiri meel yar baan furtay tiri dharkan ku gado dukaana kadibna waxaan ii noqotay tiri inaan u safro sida Turkey, China iyo Dubai aan alaabo ka keeno dharka keeno oo kadibna iibiyo. waxay tiri noloshu way ii wacnaatay. So nimekuwa na wao vizuri. So you brought them up by themselves. By themselves, yeah. And if I may ask, where is their dad at this point? waxaa la weydiiyey aabahood meeyey xilligaa baa la weydiiyey marka ilmaha aabahood ay sheegaysaa meeshuu markaas ku sugnaa xaaladiisa. I was married many years ago na tukakuja ku divorce. Yeah, to divorce 2000. It was a domestic violence. waxay tiri waxaan isguursanay waa hore kadibna waan kala tagnay tiri waxaana sababay kala tageeni domestic violence. adiga wuxuu ahaa qof dhiba oo dila ma aragtin oo xuquuqdeeda ooga dheela deetana waan kala tagnay ayay tiri ninkii. So even the feeder, they helped me to quit, to move out from the house because it was very bad. Tukapelekana kotini and the man was wakapatiwa restraining order. So as nikaribia 100 meter. So waxay tiri dagaalkii tirada badnaa kadibna wuxuu sababay inaan kala guurno oo kadib xitaa maxkamad aan wada kornay maxkamadiina waxa ay ku xukuntay in aanan uusan noo soo jirsan ilaa email 100 mitir wix ka sokeeya inuusan noo soo jirsan deetana wuu naga tagay tiri sidaas ayuu manaan iiga maray. tukaachana na yeye from that day. Akaenda njia zake na mimi nikabaki na watoto wangu. Okay. So from there nikaanzia kuwalea peke yangu from 2000. kadibna ilmihii iyadaa korsatay. Hapa milango ikafunguka. Yeah, milango ilifunguka cause I was starting my business. Nikajaribu biashara yangu, nikaanzia biashara yangu 2000 na nikaendelea vizuri. Like 2 years the husband came and taking everything. So oo waxay tiri 2000 ayay bilowday beecsharadeeda kadibna 2 sano kadib waxa uu yimid ninkeedii oo mindee macsaa lahaa lacagta koowaad ma aqaan wax walba wuu iga qaatay tiri wuu iga ceshtay marka deetana shaqada daayatan xoogaa ka dhigaystay markuu alaabtii guriga taalay lacagtii wax walba ka qaatay maamadii sifir soo istaagtay kadibna waxay tiri dad baa isku kay soo imaaday macnaha dadkii ehelkii qaraabada ii ahaa baa waxay isku kay gureen qaaraan kadib dadkii ayaa caawiyay halkaasay kasii amba qaaday kadibna lacagihii waxay ku samaysay very good business and then waxay bilowday inay aado Dubai ay ka soo qaado alaab ka keensato China tagto alaab ka keensato sidii ku nooleed ilaaha faraj u furay u kala bulaashay ilmaheedii waxbarashadii sidaasay ugu dhameeyeen maamada iyada gacanta ku haysay ilmaheeda. kadibna wiilasheedii wiilkii weynaa markuu dhameeyey waxbarashadii waxa uu shaqo ka helay meel iskool ah uu ka ahaa dadka ma arkinoo qaabila admissionka meeshii ayuu ka shaqayn jiray shaqo fiican ayuu helay kii kalena weli waxbarashadiisii ayuu sii waday. marka waxay tiri aniga beecsharadeedii aan iska sii watay marka aan dhageysano. ile kitu ilifanya mimi niende Ulaya in the business nilichukua loan Equity Bank. Ilikuwa 4.5 million plus the interest I think ikawa 5 million. waxay tiri aniga waxaan ka qaatay tiri bangiga deyn 4.5 oo deyn ah ilaa interestiga galada waxay sameeyeen deyn markii bankiga ka qaadanayaan waxaa la bixiyaa lacag oo interest ah u yaqaaniin dadka waa ribo muslimka ma isticmaalaan soo lacagta ilaa ribada markii la isku daro lacag 5 milyan ah 5 milyan ka bacdi maamadii waxay sameysay China aaday mar kale alaabay dalbatay alaabtii markii ay dalbatay
waxaa loo soo order bay kusoo qaadatay wixii ay soo qaadanaysa markaas qadartan way ku dhaceysay iskama aysan eegin kabacdi maamadii China way qiyaameen waxay usoo dhiibeen product oon jirin product aan fiicnayn oonan gadmaynin oo khasaaro ah oo fake ah ay kasoo iibiyeen ayada wixii markay oo dhagareysatay kadib Kenya kusoo laabatay Kenya markii kusoo laabatayna dhiiqa dhexda la gashay wixii dhana dhulka la galay wixii wax ka iibsaday weeday deentiya marka xilligii lagu bixin lahaana ay dhaaftay sidaas baa marka bangigii baa u yimid siday wixii ay tabarteeda ahayd intay iibin kartay ee si degdeg ah ku iibin kartay na lacagtii uma dhamaanin khasaare dhub dhahday bacdi bangigii markii dambe wuxuu ku sameeyey falisaad auction alaabteedii guriga u taalay gaari ay lahayd wixii guriga oo u yaalo everything guriga u yaalay lacag wixii yar ay haysatay everything waxa ka qaatay bangigii maamadii markii dambe si firsaafnay soo istaagtay waxay sameysay kadib waxay tiri alaabtii markiina laga qaatay anaga dhan dhulka baan wada tagnay joka alikuwa ananiambia mama unaona vile tulikuwa tunaweka nini mkeka hapa tunakaa hapa chini mkeka ananiambia mama unajua Waislamu wanakuanga wazuri sana unaona vile wanakanga chini wananga viti I think hii maisha ni very comfortable hata hakuna haja kununua viti wiilkayga yarkaa wuxuu igu yiri marka waxaan sameynay tiri dirin baan fidsanay tiri leen kuraas ma haystaan kuraastii waa laga qaatay waxay tiri wiilkayga yarkaa wuxuu yiri hooyo islaamka Soomaalida aragtay inay dirin dhigtaan wallahi noloshooda waxa waa nolol caadi ah oo maskax degan maba loo baahnaba in lagu noolaado bila kuraas waaba la noolaan karaaba sidaas ayay tiri they always encourage me hapo nataka kuona mimi nikiwa na stress so nikawaelezea mimi what I was thinking now because hatuna kitu hatuna duka hatuna gari hatuna vitu za nyumba nataka niende nika look for a green position I want to go to UK wakania mama but you are grown up you can go Yes. sasa Victor alikuwa naenda nini waxay tiri aakhir waxaan markii ay familkii qaraanka u gureen ay waxay gaartay go'aan ah inay aado dalka dibadiisa Ingiriiska marka ilmihii la tashtay tiri waxay yiraahdeen hooyo waa okay Ingiriiska aad marka waxay tiri Ingiriiskii aan u baxay ka bacdina waxaan qaban jiray tiri hool oo naagaha cadaanka ah anigu waxay tiri waan stressay tiri waan isla hadlay waxay tiri dhig la'aan baa igu dhacday anigi si ahayba ma aqaan waan iska taxadari waayay xagga markaan tagay noloshii xagga waa la qabsan waayay hawadii waa la qabsan waayay waxay tiri shaqo waxaan qaban jirnay naagaha cadaanka ma arkin oo duqoobay ayaan dharka ka bedeli jirnay u qubeyn jirnay xaarka iyo waxaas ka dhaqi jirnay baambariska u xiri jirnay shaqooyinkeena noocaas ahayd markaan 3 bilood shaqadii aan hayay tiri kabacdi aniga markii dambe waa iska dhacay dhulka ku dhacay waa suuxay isbitaal la igeeyay tiri gabar waxay tiri aan saaxiib ahayn baa caawinaysay tiri marka way u duceynaysay gabadhii baa isbitaalkii la gashay kabacdina gurigeeda ku baxnaanisay muddo 3 bilood ah waxay tiri 3 bilood kadib dhiigaygii wuu soo noqday tabarteedii way soo noqotay waan soo caafimaaday dib baan shaqadii u bilaabay sida shaqadii ugu jiray waxay tiri markii dambe waxaan bilaabay tiri walwal iyo walaac ay qalbigayga igu soo istaagay tiri caruurteedii aan ka fikiraayo deetana waxay tiri hooyaday baa u wacay tiri oo baadiye deganeed waxaan ku yiri hooyo wiilasha ii fiiri noloshooda ii soo fiiri qaab noocee bay u nool yihiin ilmahayga aniga walwal gaar ah iga haayo hooyo bas waxay tiri okay way u timid hooyo marka ilmihii u timidna waxaa layidhi ilmahaaga wax ma qabaan maasha allah way fiican yihiin insha allah waqtigii ayaa igu dhammaaday sheekada xiise aad u gooniyay leedahay aniga idinla soo socodsiin doono qaybta dambe insha allah bye bye Gam'i waayo tangobaya gudka ii qoto Gam'i waayo tangobaya gudka ii qoto Igohaatisi Gam'i waayo tangobaya